بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله يا برنامجكي قبرها qodobadaan idinkugu haynana waxaa ka mid ah waa ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan oo shaaciyay inay qaanuun cusub ku soo ragi doonaan marin biyoodka Hormuz halkaasi oo ay ka taagan tahay xiisada u dhaxaysa Tehran iyo Washington Mareykanka oo diyaarinaya in hub cusub oo weligiis uusan dagaal u adeegsan ku isticmaalo haddii mar kale dib u qarxo iska horimaadka uu kula jiro Iiraan Hizbullah oo ka warbixisay weerar ka dhan ah ciidamada Israa'iil oo ay fuliyeen saacadihii la soo dhaafay guddiga difaaca Israa'iil oo ka xaajoonaya xaaladda gantaalada difaaca oo aan waxba qabanayn iyo hubkaasi oo sii yaraanaya ciidamada gurmadka degdega ah ee Suudaan oo la sheegay inay wadaan weerar lagu beegsanayo dadka rayidka ee dalkaasi sheekada ugu dambaysa ee barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay nin halis ugu jira in uu xabsi galo sababtuna maxay tahay waa sawirkan oo soo dhigay internetka laakiin maxay tahay waxa lagu haystaa sheeko la yaab leh oo qabsatay baraha bulshada iyo warbaahinta ayaan idin hayaa dhammaan wararkan iyo qodobo kale iyo wixii warah ee soo kordhay intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha dhankaas iyo dagaalka Suudaan wararka ka imaanaya waddankaasi ayaa sheegaya in ciidamada gurmadka degdega ah ee magacooda loo soo gaabiyo RSF ay weli wadaan duqeymaha ay ku hayaan dadka rayidka ee ku sugan qaybo kala duwan oo ka mid ah dalka Suudaan taasi oo si cad uga hor imaanaysa qawaaniinta caalamiga ah ee bini'aadantinimada sida ay sheegeen ururo caalami ah oo xuquuqda aadanaha ka shaqeeya ciidan military ayaa u xaqiijiyay warbaahinta in kolonyo gaadiid dagaal ah oo ay leeyihiin ciidamada RSF ay duqeeyeen gaari siday dad rayid ah oo marayay aaga al-Isaawiya oo ku yaala koonfurta Umudurman warka ayaa intaa ku daraya in 5 qof oo rayid ah ay ku dhinteen weerarkaasi lagu beegsaday gaariga iyadoo ururka xuquuqda aadanaha ee qareenada degdega ah uu soo saaray bayaan uu ku tilmaamay beegsiga rayidka inuu yahay dambi dagaal isla markaasna uu jabinayo sharciga caalamiga ah ee bini'aadantinimada warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegaysa in weerarada RSF ay socdaan maalintii saddexaad oo xiriir ah iyagoo beegsanaya dadka rayidka ee ku nool koonfurta Khartoum oo ah deegaan aan lahayn saldhigyo military sida ay sheegeen ila ka tirsan ciidanka Suudaan marka laga soo tago weerarada ka socda koonfurta Umudurman RSF ayaa sidoo kale beegsanaysa deegaano kale oo rayid ah sida magaalada Dalinche ee gobolka Kordofanta Koonfureed shabakada dhaqaatiirta Suudaan ayaa sheegtay in nidaamka caafimaadka ee magaalada Dalinche uu ku dhow yahay burbur kadib markii la beegsaday xarumaha caafimaadka ee bixiya adeegyada bukaanada waxay xaqiijiyeen in tiro cisbitaal ah ay shaqada joojiyeen iyagoo bayaankooda ku tilmaamay xaaladda magaalada mid aad walaac u badan shabakada ayaa ku baaqiday in la joojiyo weerarada lagu hayo xarumaha caafimaadka isla markaasna la furo marino bini'aadantinimo oo degdeg ah si loo gaarsiiyo saahida caafimaad iyo shaqaalaha caafimaadka geesta kale qaramada midoobay ayaa qoraal ay ku daabacday baraha bulshada internetka waxay ku sheegtay in dagaalka bariga dhexe uu kordhiyay qarashaadka isgaarsiinta gargaarka bini'aadantinimo ee dadka u baahan gargaarka ee ku sugan Suudaan dalka Suudaan ayaa tan iyo bishii Abriil 2023 waxa uu wajahaya dagaal u dhaxeeya ciidamada militariga ee dawladda iyo kuwa RSF qaramada midoobay waxay ku tilmaamtay colaadan midda ugu weyn ee masiibo bini'aadantinimo ee dunida ka taagan taasi oo sababtay barakaca malaayiin qof oo rayid ah waa tahay warkaas halkaas aynu kaga gudubno markan waxaynu eegaynaa dhanka colaadda Hizbullah iyo Israa'iil u dhaxaysa ururka Hizbullah ayaa waxa uu soo bandhigay muuqaal uu ku sheegay in uu muujinayo dagaalyahanadiisa oo bartilmaameedsanaya askar ka tirsan ciidamada Israa'iil iyagoo adeegsanaya gantaallo iyo madaafiicda noocyada kala duwan hawlgalkaasi oo ay ka fuliyeen
magaalada alqantara ee koonfurta Libnaan. Ururka reer Libnaan ayaa sidoo kale sheegay in weerar kale ay ku qaadeen askarta Israa'iil ee magaalada Al-Bayada, waxaana ay sheegeen in askartaasi khasaare ay gaarsiiyeen. xagga Tel Aviv, guddiga arrimaha dibadda iyo difaaca ee baarlamaanka Israa'iil ayaa qabanaya kulan degdeg ah oo ku saabsan yaraanta gantaalada difaaca ee loo yaqaan Arrow 3 ee Israa'iil, sida uu wariyey telefishinka kanaal 12 ee Israa'iil laga leeyahay. xildhibaan Boaz Besmath oo ka tirsan xisbiga Likud ee Netanyahu uu hogaamiyo ahna gudoomiyaha guddiga ayaa la sheegay inuu ku baaqay kulanka kadib markii in ka badan 3 meelood oo meel xubnaha guddigu ay saxiixeen warqad dalbanaysa in laga doodo mawduucan fashilka gantaalada difaaca iyo dayacadda gudaha ku aadan. warqadda ayaa waxaa diyaarisay xildhibaanad ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo lagu magacaabo Efrat Raitin, kadib markii telefishinka Kanal 12 uu sheegay in xukuumadda ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay si isdaba joog ah u diiday kordhinta maalgelinta gantaalada difaaca xilli ay sii kordhayaan xiisadaha Israa'iil kala dhexeeya Iiraan iyo weerar badan oo loo adeegsaday gantaalada nooca balastiga. warqadda oo tix raacaysa baaritaan toddobaadkii hore la sameeyey ayaa waxa ay muujinaysaa walaac ah in Israa'iil muddo birooyin ah ay ka gaabsatay ballaarinta wax soo saarka qadka isku xirka iyo dhismaha gantaalada loo yaqaan Arrow 3, inkastoo 2 weerar oo waaweyn oo gantaalo balastig ah Israa'iil lagu soo qaaday oo dhanka Iiraan laga soo qaaday. gantaalada Arrow 3 waa nidaamka difaaca ee ugu horumarsan ee masaafada dheer ee Israa'iil, waxaana lagu talagalay inay qabtaan gantaalada balastiga ah sida kuwa laga soo tuuro Iiraan, inkastoo weli ay jiraan in gantaalo badan ay ka gudbeen nidaamyada difaaca. xildhibaanada guddiga ayaa waxay dalbanayaan in la hor keeno wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Israel Katz iyo wasiirka maaliyadda Bezalel Smotrich si ay uga jawaabaan su'aalaha ku saabsan yaraanta la sheegay gantaalada difaaca. lama oga goorta kulankaasi la qaban doono. arrinta marka waxay maraysaa Israa'iil waxaa ka taagan dhibkan. gantaaladii waxay leeyihiin waana yar yihiin oo si yaraanayaan, inta la haystana gantaalada Iiraan baa ka dusayaba oo jiiraya. arrinta marka waxay noqotay walaac weyn, arrin xambaarsan. waa hagaag, waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda Maraykanka iyo Iiraan, iyo Maraykanka oo la sheegayo in markii ugu horreysay hub uusan weligiis isticmaalin haddii dagaalka Iiraan dib u qarxo ku isticmaali doono. muxuu yahay hubkan? faahfaahin ayaan idinkaga haynaa iyo sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka xiisadda Maraykanka iyo Iiraan. si gaar ah waxaynu u eegaynaa war culus oo ka soo yeeray ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan oo magacooda loo soo gaabiyo IRGC. waxay ku dhawaaqeen inay hirgelinayaan xeerar cusub oo lagu maamulayo gacanka Faris iyo Marinka Hormuz, iyadoo la marayo amaba la qaadanayo tilmaamaha hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Mujtaba Khamenei. bayaan ka soo baxay ciidamada IRGC ayaa lagu sheegay in xeerarkan cusub ay ku jiraan sida Iiraan ay u maarayn doonto gacanka Bershiya iyo Marinka Hormuz, iyadoo la adeegsanayo xakamayn iyo awood buuxda oo ay Iiraan ku leedahay markaasi aaggaasi. Iiraan waxay leedahay xeeb dhererkeedu uu gaarayo 2,000 oo kiiloomitir oo ku taagsan gacanka Carabta iyo Marinka Hormuz. ciidamada badda IRGC ayaa sheegay inay ka shaqayn doonaan in aagga biyahaasi uu noqdo meel ammaan ah oo degan oo ay ku raaxaystaan shacabka Iiraan, sida la yiri. bayaanka ayaan bixin wax faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xeerkan cusub. Maraykanka iyo Israa'iil ayaa bilaabay dagaal ka dhan ah Iiraan 28 February, iyadoo Tehraan ay 2 bisha Maaj ku dhawaaqday inay xadidayso maraakiibta maraysa Marinka Hormuz, halkaasi oo 20% shidaalka caalamka uu ka gudbo. waa tahay arrintu markaasi maraysa. Iiraaniintu waxay leeyihiin meeshaan markuu leeyahay Maraykanku ciidamo caalami ah maamulaya, anaa wax ka maamulaya. Trump mar uu leeyahay aniga iyo Ayatollah Mujtaba Khamenei ayaa maamulayna. waxaa la yiri meeshaan waa Marinka Hormuz baa la yiri. Marinka Hormuzna ma aha la yiri New York iyo Washington, annaga iskale bay yiraahdeen. dagaal haddaad doonaysaan dagaal baan kula gelaynaa.
haddii aan nabad doonayso soo ma ahan meesha annagaa iskale haddaba xiisadda colaadeed ee labada dhinac ka dhex aloosan ayaa cirka ku shareeran maraykanka waxaa la sheegayaa markii ugu horreysay inuu filayo in haddii dagaalku u qarxo uu u isticmaalo dagaalka iiraan gantaalada hypersoniga maraykanku weligiis hypersonic ma samaysan laakiin hadda waxay leeyihiin inkastoo dhowr jeer dib u dhacay waxaa noo diyaarsan gantaalka la yidhaahdo dak ama eagle dak gantaalada marka waxay ku leeyihiin waa gantaalaha hypersoniga oo aan ugu talagalnay iiraan inaan u isticmaalno markii ugu horreysay hadalada ku saabsan suurtagalnimada ah in Mareykanka uu qaado tallaabo militari oo cusub oo ka dhan ah Iiraan si loo jabiyo ismarwaaga labada dhinac ee wada xaajoodida ayaa waxaa soo baxaya warar isa soo taraya oo ku aadan in Mareykanku bariga dhexe uu diro gantaalo cusub oo hypersonic ah oo lagu magacaabo Dag Eagle qabiirka arrimaha militari sareeye guud Xasan Junior oo ka hadlaya arrimahan ayaa waxa uu aaminsan yahay in ciidamada Mareykanka laga yaabo inay qorsheeyaan wax ka badan hal xaalad maalmaha soo socota sida fulinta weerar dhulka oo xadidan shabakada wararka Axios ee Mareykanka laga leeyahay ayaa soo xigtay ila sheegay in taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee CENTCOM madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u soo bandhigi doono xaalad ku saabsan howlgal militari taasi oo laga yaabo inay ku jirto qabasho qayb ahaan ah oo lagu sameeyo marinka Hormuz digitaanka ciidamo dhulka ah bartilmaameedsiga kaabayaal cusub shabakada wararka Bloomberg ee Mareykanka fadhigoodu yahay ayaa sidoo kale waxay tabisay in taliska dhexe uu geeyo gobolka gantaalo hypersonic ah si loogu isticmaalo Iiraan kuwaasi oo ay ka mid yihiin Dag Eagle oo loo arko mid ka mid ah gantaalada ugu muhiimsan isla markaana ay tahay markii ugu horreysay ee dagaalo loo adeegsado maadaama ay dhowr jeer dib u dhaceen howlgelintooda qabiirka lagu magacaabo Cabdulqaadir Arade oo ka hadlayay iskoorimaadkii dhacay dhowaan ayaa sheegay in Mareykanka uu adeegsaday gantaalada loo yaqaano Prism kuwaasi oo gaaray ilaa 500 kilomitir balse hadda ma awoodaan inay ka gudbaan nidaamka difaaca ee Iiraan iyadoo wada xaajoodida u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan ay wajahayaan caqabado waaweyn sabab la xiriira ku adkeysiga labada dhinac ee mowqifyo oo midka kala diidan yahay Washington waxay gobolka ku daadgureysay 3 markab oo xambaara diyaaradaha dagaalka oo kala ah USS George W Bush USS Abraham Lincoln iyo USS Gerald Ford kuwaasi oo siday ilaa 15,000 oo askari 200 oo diyaaradaha dagaalka iyo helikobtara ah waxaana hareer socday ilaa 12 markab oo ilaaliyayaal ah 3 xaaladood oo suurtagal ah xoojintan waxay muujinaysaa in Mareykanka uu ku sii socdo mid ka mid ah 3dan xaaladood ee soo socda sida uu General Junior ku sheegay falanqeyn laga sii daayay telefishinka Al Jazeera kuwaasi oo ku saleysan qiimeyn sax ah oo ku saabsan xaaladda dhabta ah ee dhulka xaaladda koobaad in la sii adkeeyo go'doominta badda si ay ugu adkaato maraakiibta Iiraan inay ka baxsadaan xayiraadaha Mareykanka Washington waxay qaadan kartaa doorashadan haddii maamulka Trump uu go'aansado in tani ay ceejin doonto Iiraan oo markaasi ay ku qasbi karto inay tanaasul ka samayso wada xaajoodida xaaladda labaad in la abuuro naxdin istiraatiiji ah oo jabisa adkeysiga reer Iiraan iyada oo loo marayo weerar xoogan oo xanuun badan oo lagu qaado kaabayaasha xarumaha tamarta iyo qaar ka mid ah buundooyinka si loo xaqiijiyo waxyeeleynta niyadooda adkeysi xaaladda saddexaad oo ah fulinta weerar dhulka ah oo xadidan oo laga fuliyo jasiiradaha Qaraj ama Laag iyo suurtagal ahaan jasiiradda Qashim oo ku taala marinka Hormuz dhaqdhaqaaqan iyo daadgureyntan ciidamada Mareykanka waxay sidoo kale muujinaysaa suurtagalnimada ah in la fuliyo weerar cirka ah oo laga qaado badda iyadoo aan loo baahnayn ficil dhul ah inkastoo ay jirto awood lagama maarmaanka u ah arrintan sida uu sheegay Johnny waxaa jiri kara xaalado kale oo maskaxda Mareykanka ku jira oo aan weli la shaacin haddaba muxuu xaaladan ka tari karaa gantaalka Dag Eagle looma adeegsado howlgal militari oo ballaaran balse waxa uu kordhiyaa suurtagalnimada weerar xadidan ama howlgal dhulka ah sida uu sheegay qabiirka arrimaha militari gantaalkani weli waxa uu ku jiraa marxaladda tijaabada sidaas darteedna waxa uu taagan yahay kordhin awood dhab ah halkii uu ka noqon lahaa isbedel tayo leh maadaama uu gaari karo ilaa 3,000 oo kilomitir kuna socdo xawaare aad u sareeya gantaalkani waxaa loo isticmaali karaa bartilmaameedsiga gudaha fog ee Iiraan gaar ahaan gobolka waqooyi bari kaasi
oo ay ku yaalaan saldhigyada gantaalada sida uu sheegay Jenaraal Juni isagoo intaasi ku daray in ku tiirsanaanta noocan gantaal ay noqon karto hub cusub oo Teheraan heshay. Afhayeenku waxa uu soo qaatay malaawaalka diyaaradaha dagaalka Iiraan ay soo rideen maalmihii ugu dambeeyay ka hor xabad joojinta oo ay ku jiraan diyaaradaha 15 iyo A-10 waxaana suurtagal ah in adeegsiga gantaalada hypersonic ah weerar kasta oo suurtagal ah uu yahay isku day lagu badbaadinayo diyaaradaha dagaalka ee hubka cusub. Gantaalka Dag Eagle ayuu qabiir kari iri waxa uu matalaa gacanta dheer ee dagaalka balse diyaaradaha dagaalka ayaa ah gacanta dheer haddii Mareykanka uu si buuxda hawada Iiraan ula wareego sida uu Donald Trump ku andacooday. madaxweynaha Mareykanka ayaana ugu baaqay dadka Iiraan inay isdiibaan isagoo sheegay in Iiraan la jabiyay military ahaan maraakiibteedana lagu qoosiyay badda awoodeeda cirkana si xad dhaaf ah loo burburiyay. Dhankeeda Iiraan waxay ku hanjabtay tallaabo military oo aan horey loo arag oo ay kaga jawaabto waxay ugu yeerto burcadbadeednimada Mareykanka. Waxaana ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ah Iiraan ee IRGC ay sheegeen in si ballaaran ay uga jawaabi doonaan weerar kasta xitaa haddii uu yahay mid xadidan. waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen. waxaan idin haynaa sheeko la yaab leh. sawirka halkan idinkaga muuqda ninbaa internetka soo dhigay. waa dawaco wadada bartikeeda maraysa. laakiin ninka dacwa loo haystaa. sawirkan maxaa internet u soo dhigtaa lagu haystaa? maxay tahay sababta marka? sawirkan maaha sawir caadiya. sawir intii la qaaday oo kamera la isticmaalay ama mobile la isticmaalay ahan. sawirkan waxa lagu sameeyay computer ama waxa loo yaqaan AI, artificial intelligence, ama sawirada lagu sameeyo garaadka macmalka ah ama aqliga samayska ah. ninkan wuxuu dhashay wadanka Kuuriyada Koonfureed. marka waxa leeyahay ninkan oo degan magaalada la yiraahdo Daejeon ayaa wuxuu soo dhigay sawirkan internetka wuxuuna sababay jahwareer weyn. bishii aynu ka soo gudubnay ee April 8 warbaahinta ayaa waxay sheegtay nin la yiraahdo Niwaku in markaasi uu soo dhigay sawir uu ku sheegayo neefkan ama xayawaankan ayaa waxa uu ka baxsaday beer xayawaan, waxaana sawirkan uu ku faafiyay baraha bulshada. arrintaasi waxay sheegeen mas'uuliyiintu in ay dhacday markaa in arrintan ay dhalisay walwal weyn, taasi oo carqaladaysay baa la yiri shaqadii booliiska iyo dadamiska. iskuuladii baa la xiray, kooxihii gurmadka ayaa loo diray meeshii. ugu dambeyntii waxaa leeyahay xayawaankan ayaan jirinba. ninkan oo 40 jir ah ayaa markii arrintan booliiska ay soo qabteen oo la weydiiyay ayaa waxa uu yiri waxa iga ahayd buu yiri iska inaan ku madasho. inkastoo marka qaarkood ay leeyahay waa dawac haddana laakiin haddana waxa leeyahay waa yey. marka yey bay u badan tahay. sheekada marka maxaa u soo qaadan? hadda ayaamahan Soomaalida waxay baratay in la isticmaalo AI-ga. dad codkoodii la bedelayo, qof muuqaalkiisii wax uusan dhihin iyo ficil uusan samayn laga samaynayana waa la sameeyay. laakiin midda ugu daran imaan kartaa maxay tahay marka? bacdama dadkan Soomaalida qaarkood ay hubaysan yihiin oo beela laga yaabo meelaha qaarkood in xasarad ay ka aloosan tahay. waxaa suurtagal ah leeyahay haddii la soo dhigo beel u hanjabaysa ama oday dhaqameed kale u hanjabaya ama dhinacyo iska soo horjeedo isku hanjabaya in qoladii kale ayaga laftigoodii dagaalba soo qaadaan oo yiraahdaan reer hebel baa noo hanjabaya. hadda hebel suldaankoodii, ugaaskoodii, garaadkoodii, yabarkoodii, imaamkoodii ayaa la soo dhigaya baraha bulshada. waa dhibaatadaas. iyo inay iska hor keento xitaa qoysaska ama dad isqabay ama dad hawlo kale ka dhaxeeyeen. guryo inay ku burburaan baa halis ah. marka aaladan aqliga samayska adduunyadii ayay hadda dhibaato ku haysaa. ninkan hadda maxaa lagu haystaa? waxaa lagu haystaa booliiskii uu mashquuliyey, adeegga gurmadkaa uu mashquuliyey, waxaa lagu yaacay wadooyinkii ileen yey suuqa lagu soo daayay. wax walba ay samayn kartaa.
ilmihiiba iskoolada laga joojiyey marka qaanuun hadduusan jirin ila ninkan hadda waxaa lagu haystaa inuu khalqal geliyey amnigii soomaalida isla xisaabtamaya marka haddii 10 qof 20 30 qof ay ku dhimato ilaahay ma keeno muuqaal la sameeyey qof kaa sameeyey waxaa laga yaabaa dadkaas qaarkood inay dibadaha joogaan hadduu qofkaas marka gudaha joogana waa inuu jiraa qaanuun qaban karaa hadduu dibadda joogana waa in dibadda la iskula xisaabtamaa laftigeeda ilaa maxkamadaha ka jira adduunka soomaalida waxyaalaha aysan fahamsanin waxaa ka mid ah haddaad noqotid wariye haddii aad tahay qof arrimaha ula dhaqaaqa haddii aad tahay qof shacab caadiya meesha aad joogto dunuub baad ku geli kartaa waxyaalo badan oo xeerarka saxaafadda aan qusayn baa lagu dhaqmaa xitaa oo ka baxsan asluubtii anshaxii saxaafadda arrinta marka dhibaatadeeda leedahay soomaalida marka waxay u baahan tahay inay ka digtoonaato ha aaminin wax walbo internetka aad ku aragto dardaaranka ugu muhiimsan waxa weeye wax walbo internetka aad ku aragta ha aaminin hay'adaha warbaahineed ee la yaqaan ka hubso xitaa idaacadihii waaweynaa baa ku dhacaya waxyaalaha qaarkood way fiican tahay barnaamijyaan ka samayn doonaa qaab loo hubiyaa jira sawirka iyo videoga inuu yahay ama muuqaalka inuu yahay mid dhaba iyo inuusan ahayn mid runa yani inuu yahay mid dhaba oo runa iyo inuusan ahayn qaab lagu ogaadaa jira qaabkaas waa ka sheekayn doonaa waana soo dhigi doonaa laakiin wax walba oo la soo dhigo internetka run ma ah marka ha aaminin waxba ha aaminin ilaa aad ku aragto hay-ad warbaahineed oo sumcad leh oo aan lagu aqoon been abuur ha samaynin inaad aaminto shaqadan aan wadanaa inta naga qaadato inaan wax hubinno warkan ba jiraa sawirkan ma sawir rasmiya muuqaalkan muuqaal jira ma yahay waqti badan naga qaata marka arrintaas waa muhiim aad baad u mahadsantihiin akhyaaray inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii aad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir aynoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu